marwada madaxweynaha Somaliland marwa Aamin Waris Sheekh Maxamuud Shirdi ayaa maanta deeq agab kombiyuutar u qaybisay ardayda dhigata dugsiga dhagoolayaasha magaalada Burco. Ardayda dhigata dugsiga dhagoolayaasha magaalada Burco ayaa iyagu maanta gacmo furan ku soo dhaweeyay deeqdani kombiyuutarada ay dugsigaasi ay ugu deeqday marwada madaxweynaha Somaliland marwa Aamin Waris Sheekh Maxamuud Shirdi. Ardayda dhigata dugsiga dhagoolayaasha magaalada Burco ay maanta shucuurtooda ahayd mid ay aad u kacsan tahay isla markaas si weyn ay u soo dhaweynayeen deeqdani kombiyuutarada ay ugu tala gashay marwada madaxweynaha Somaliland ardayda dhigata dugsiga dhagoolayaasha magaalada Burco. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Somaliland marwa Zamzam Cabdi Aadan, wasiirka wasaaradda maaliyadda Somaliland Taasiis Maxamed Samaale iyo wasiirka madaxtooyada Somaliland mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan oo halkaasi ka hadlay ayaa ardayda dugsiga dhagoolayaasha magaalada Burco uga mahadnaqay sida fiican ay u soo dhaweeyeen waftigani. sheegay runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan idin nimaadno, aad baan ugu faraxsanahay runtii in maanta iyo maalintii qolka yar ku jirteen dhifan weyn u dhaxeeyo oo maanta wax barateen kombiyuutaradii maraysaan madaxweynaha qaranku idin yimi xukuumadii oo dhamay idin timi marwadii idin timi aad baan ugu faraxsanahay. waxaan u nidooranayaa laba shay oo kaliya laba shay baa ku gaadhay laba shay ayaa ku gaadhay in waxa weeye inta ay hesheen halka aan gaadhay marka laga yimaado Ilaahay Raxmaanka wuxuu deeqdu siiyay laba shay baa ku gaadhay mid waa waxbarashada midna waa doonista yani aad doonteen in wax noqotaan cid walba fariintiina u gudbiseen waxa weeye aydan ambitionkiina iyo rabitaankiina aydan oo waa dhagalaadiina guri iska fadhiista hadda dadaashaan wax walba labada shay hadda dadaashaan waa gaaraysa bay shucuurtaydu u kacsan tahay quruxda sharafta nadaafada akhlaaqda edebta maskax wanaaga iyo tacliinta ka muuqata caruurta hanoonimi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadkii iga horeeyay labadii wasiirayga horeeyay baa wixii leedin qaban lahaa iyo waxa u baahantii sidii loo dabooli lahaa baa idin sheegay dawladani sida ula socotaan waxay u diyaartahay wax alla waxa caruurta kale ee iyagu aan dhagaalayn loo qabto iyo wax ka badan inay idin qabato. waxaan halkan anigu idinka ballan qaadayaa inaan madaxweynaha weydiiyo wasiirkii madaxtooyaduna wuu maqlayaa wasiirkii maaliyaduna wuu maqlayaa 30,000 ee ay guddidu codsatay in horumarka lagu gaadho oo farsamada gacanta lagu bilaabo hawsheeda si qolooyinkan baacid mushtarkuna wax ugu daraan ballan baan maanta halkan idinka qaaday. aad iyo aadna waan idinku faraxsanay waan idin ducaynaynaa dadaala mustaqbalkii dalkan baatihiin dhagalaantu wax alla waxay idin yeeshay ma jirto aqligiinii wax ma yeelin kartidiinii wax ma yeelin quruxdiinii wax ma yeelin dadnimadiinii wax ma yeelin dareenkiinii wax ma yeelin wadaninimadiinii wax ma yeelin dadku baa la mitahiin Ilaahay baa wax walba ku shuqul leh. sidoo kale marwada madaxweynaha Somaliland ayaa isla maanta booqasho ku tagtay xarun loo dhisay agoomaha magaalada Burco taasoo wali u dhismeedu si rasmi ah uga socdo gudaha magaalada Burco. ومحمد إبراهيم حسن محمد بريتش شبكة عالم قاروناغ نيوز برعو.